السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحاب يوتيوب channel ku xidhan aad iyo aad baan idin salaamay halka muuqaalkaasi ka imanay waa Kigali meesha aad ka quruxda badan leh markaas su'aal nala soo weydiiyay ayaan jecelahay inaan ka jawaabo oo ah qofku ma iman karaa oo family-gu ma iman karaa Rwanda ma ku noolaan karaan of course way iman karaan family-gu Rwanda way ku iman karaan way ku noolaan karaan ganacsi bay ka bilaaban karaan sida caadiga wadamada kale loogu nool yahay Nairobi loogu nool yahay Uganda loogu nool yahay ayaa ugu noolaan karaan marka ganacsigooda waa bilaaban karaan ciyaalkooda waxbarashada waa gali karaan waa meel aad iyo aad u shidan sad naarkasan meel aad u qurux badan baan joognaa halkana insha Allah marka timaadaan way idinku qaadan doontaa waqtigiina la socod wanaagsan waxaanu gudaha wali kaga jirnaa muuqaalkii ahaa aanu ka duubanay su'aashii ahayd Rwanda ma la iman karaa oo ma lagu noolaan karaa Rwanda waa la iman karaa waa lagu noolaan karaa laakiin shuruudaha daba socdo ah wadankii marka timaado ee family-ga wadankii yimaadaan waa inay wadankii wax ku soo kordhiyaan waa inay business family furtaan ganacsi bilowdaan ama waa inay dhulka iibsadaan sida beer oo kale oo wax soo saar ay sameeyaan shuruudahaas waxay ka mid yihiin shuruudaha sharciga lagu siinayo family-ga laakiin caruurtu iyagu waxay wax ku qaadanayaan family-gooda in wadanka wax ku leh ay wax ku qaadanayaan wadanka aad baa loogu noolaan karaa waxbarashadiisu waa jaban tahay noloshiisuna saa u sii qaali maaha ammaankiisu waa fiican yahay marka family-gii doonaya inay yimaadaan ee wadanka ku noolaadaan family Soomaaliya way ku nool yihiin laakiin aad uma badna ee waxaan rajaynayaa in qofkii doonaya inuu wadanka yimaado inuu shuruudaha horta iska buuxiyo oo wadankii uu ganacsi ka bilowdo kadib ayuu fiisa qaadanayaa oo ku noolaan karayaa meesha doono uu ka degi karayaa ammaankiisu waa 100% cid ma cunsuradeyso waxbarashadana way ka faa'iideysan karaan sida waxay noqon karaan dadka kale ee wadanka ku nool ama Kongolese aadan ama Chadian aadan ayuu qofka Soomaaliga la mid noqonayaa waxaanu leenahay ka faa'iideysta oran maayo kada waa intaad kaliyo nooshay oran maayo kada waa intaad kaliyo nooshay makaya bitonta anigoo karkaba dhigay culayskiis makaya bitonta soo aniga oo faxan oo aan fayobahay عاشق وقني في ذعولهم دعين